gobolka Hiiraan oo ah halka kaliya ee waqtigan uu sida adag kaga socdo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa saacadihii la soo dhaafay uu dagaal adag gobolkaasi ku dhexmaray ciidanka dadka deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda iyo kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyay ee caawa ka imaanaya deegaanka Cilmacaan oo u dhaxeeya magaalooyinka Jallaqsi iyo Jowhar ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay si buuxda caawa gacanta ugu hayaan tuulooyin dhowr ah oo hoostaga deegaanka lagu dagaalamay ee Cilmacaan dagaalka ayaa yimid kadib markii koox ka tirsan al-shabaab ay weerar toos ah ku soo qaadeen ciidanka dadka deegaanka ee macawisleyda kuwaas oo deegaanka Cilmacaan saacado ka hor kala wareegay al-shabaab afayeen ugu hadlay kooxda macawisleyda gobolka Hiiraan ayaa sheegay in tuulooyin dhowr ah oo ku tirsan xadka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe inay kala wareegeen shabaabkii weerarka ku soo qaaday sidoo kale kooxda macawisleyda Hiiraan ayaa sheegtay inay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab iyo dagaalamayaal dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Cilmacaan isla gobolka Hiiraan wararka caawa laga helay deegaan lagu magacaabo Ceelay ayaa sheegay in xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay saacadii la soo dhaafay duugeen ama ay dumiyeen ceelbiyood dadka deegaanka ay ku lahaayeen deegaankaas aan kor kaga soo waramay hase ahaatee koox gurmada oo dadka deegaanka ayaa la sheegay inay daba galeen oo baadi goob ay ku hayaan shabaabkii deegaankaasi howlgalka ka fuliyay xaaladda gobolka Hiiraan ayaa haatan wada kacdo miran oo dadka deegaanka ay kaga soo horjeedaan al-shabaab inkastoo wali ay jiraan deegaano gacanta al-shabaab ku jira markaas Buula Burde deegaanka Jicibow oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Buula Burde waxa aan meel aan sidaas uga fogeen la sheegay inay ku sugan yihiin koox ka tirsan al-shabaab kuwaas oo qayb ka ahaa xubno dhawaan looga adkaado weerar ay ku soo qaadeen saldhig ciidanka militariga Soomaaliya dhanka qorxsin ay kaga leeyihiin deegaanka Jicibow oo hoostaga magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan taliska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa caawa ku dhawaaqay in deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab waxa war ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu sheegay in ninka la dilay uu al-shabaab u qaabilsan dhanka xisbada waxaana lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidanka militariga Soomaaliya sidoo kale warka ka soo baxay dowladda ayaa intaasi ku sii daraya in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Raqiib Maxamed Xasan kaas oo ahaa sargaal ka tirsan kooxda al-shabaab waa sida lagu sheegay warka dowladda federaalka dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u sheegtay qasaaraha dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan ugu yaraan dowladda ayaa sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay 20 dagaalamo oo ka tirsan kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo haatan ah hogaamiyaha guud ee dagaalka Hiiraan ayaa sheegay inay laba jibaari doonaan howlgallada iyo dagaalka deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan madaxweynaha Soomaaliya oo ah taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyay ee si wada jir loogu dhaqaajinayo howlgallada Hiiraan Shabeellada Dhexe Galgaduud iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marar badan ku celceliyay in dowladdiisu ay dhab ka tahay dagaalka al-shabaab waxaase la sugi doonaa guusha ay dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kaga gaaraan dagaalka al-shabaab oo haatan deegaano badan ay ciidanka dowladda iyo dadka deegaankuba ku qabsadeen